بروفيسور عبد علي جامعة waxaa kamid ahayd asaasiyaasha xisbiga kulmiye dhawaan waxa iska cadishay xilkaaga asmaha guud ee aad haysay maanta adiga saddex mas'uulaad ku jirto waxa laga qaaday xubnimadii iyo kamid ahaanshihi golaha dhexe labadaba sidee warta xilka qaadista iyo xubnimadii meel laga eeriyay xisbiga wallahi horta warqada anigu koobi ma helin maxaan ku radaa laakiin warbaahinta oo dhan waxa loo sheegay inay garanaysaa warbaahinta way soo gaadhay marka waxa la xaqiijiyay jirto marka hadii ay sidaa tahay waxay tilmaamaysaa waa sababtii aan uga tagay markii horeba xukuumadda uga tagay oo waxa weeyaan maxaan ku radaa waxa ku qoraa warqada guddiga anshaxmarinta guddiga fulinta waxay u gudbisay in maxaan ku radaa xubnahani uu kamid yahay Cabdi Cali inay sameeyeen anshax darray waxa oo ma garanaysaa marka anigu horta marka hore cidii timi ma jirto xisbiga cid ka socota guddiga fulinta guddiga anshaxmarin wala cid aan arkay ma jirto cid guddiga khalad baad ku jirtaa ma jirto marka waa sababtii aan uga tagay maalintii madaxweynuhu ila soo hadli jiray ugu oran jiray wasiirka waad ka gardaran tahay ka gardarrada xukunka sare joogay ugu xukumayda ee miyaad waxbay weydiinayeen madaxweyne uu yiri dadna cadeynteedii waxa iga waan haysanaa waaba tiyo kalow marka waxa weeyaan uu dhigay xataa telefoonka maalinta ilaa markii dambe ana ku celiyay oo yiri ballan baan doonayaa ana ku raadayna markaas uu si jilicsanay yiri laba cisho iyo wax bal iga maqnaa marka muu doonay badayno arkada waaba dhigay intuu telefoonkii xukunkii guriday in lagu dhageystana de ma habo de cadeyntii baan haystaa marka waaba tiyo kaloon iminkana iyadoon la arag oo aan marka casharka laga faa'iideysanaya muhiim waxa muhiimkii maaha aniga in xisbi laga saariyo waxa garanaysaa waxba isku ma qabin markii horeba laakiin waxa muhiim ah in cashar ka faa'iideysano wax ka barano wadankan aynu ka dhigno wadan sharci ku shaqeynaya waxa weeyaan marka aad xukun soo saarayso iminka warqad bay soo saareen aniga warqad bay soo saareen Soomaa xukun bay soo saareen xukunku waa xukun idaariya xukunka idaariga waa in loo yeero qofka oo wax la weydiiyo qofka lagu eedeynayo xukunka idaariga ka maxkamadda buu lamid yahay marka waxa weeyaan hadii iminka anigu wasaaradda markan joogay oo kale matin hadaan qof shaqaalaha doonayna inuu anshax marin ku sameeyno de waanu yeeri jirnay qofka digniin baanu siin jirnay de marka dambeena de go'aan baa laga gaari jiray haduu ka waantoobi waayo de waxa weeye processkii in la maro marka arinta muhiimkii maaha Cabdi iyo Hebel iyo Faarax iyo Jaamac iyo xataa madaxweynaha iyo xataa gudoomiyahan saxiix la sheegay ku meel gaarka waxa muhiimka issue iyo arinta iyo inay noqoto kiis sharci ah marka anigu ma maqashay dahabshil baa bad galay waxa weeye maanta bad bay galeen waxa weeye maxkamadan tagaya waxaan u sheegayaa inaanay ii yeedhin inaanay soo fadhiisin inaanay weligood waxba inagu odhan shaxdaraad samaysay weligii khalad samaysay waxa weeyaan ayaan sheegay maxkamadan tagaya go'to test baan gelinaya wadanka oo dhan test gelinaya anigu imtixaan baan wadanka oo dhan gelinaya maanta ama wadankan wuxuu noqonayaa wadan rule of law oo constitution ku shaqeynaya oo sharci ku shaqeynaya ama wuxuu noqonayaa wadan de aynu uga hadhna cid gaar ah oo de marka kolba de hadii xisbi noqoto hadii dawlad noqotaba de wixii la doono laga yeelo way dhici kartaa taasi way dhici kartaa de way soo bixi doontaa wixii jiraba way dhici kartaa imika waxaan maqlaayay waa la isugu yeerayaa ninkan saxaxay in Cabdi Dheere ayaaba gudoomiyaha ku meel gaarka laga dhigayaa si loo yiraahdo saddexda xisbiga wadanka ka jiraba garxajis baa ka wada gudoomiyaha riwaayad caynkaas in dadka loo dhigo ayaa soo socota marka in Cabdi Dheere waa ninkii 20 sano ninka ka weyn de mobilka ku dhuftay taas aan shacdare ka weyn ma jirtay madaxweynuhu hadduu doonayo anshax mariyo ka inuu anshax mariyo de 20 sano ninka weyn buu mobil wajiga ka dhuftaa dhaqan ahaan iyo حتى كيس بليس بينقول كريسي دقن هان وكيس حق الصومالي دقن الصومالية حق بليس كنا وكيس بليس ويان حتى تقف كل فتو محن كلها نبرة كل فتو وكيس بليس ويان ده فيصل على ورابع يو كل فتي واتي وراك ودان ده كقريد مقرنسا مركا مكيبة أنا جاي أنشح مرينا أو على ياب لويا مركا وحويا روتي ده أنشح حياة بهم بملاقح وبهم بمن نسلقنا الصورة قال إن ده لو دقي أو ده لاسي صعدة وأنا كلامي كويس بدله صوص صعدة حق حسبك أو حلا الدنيا إن ده لاسي سمية وحياة بعين كاسو رواية ده بدن بيرداون دونا أو ده سياسته نيوالي برواية ده ليه ما دام قلت إنه الركات وين oo ama ka torbado waxa la yiri ragi ka waaweynaa xisbiga Shabeelle ba xisbiga laga yiri Cabdiqaadir Nicolas Cabdiraxmaan Cabdiqaadir sagana birta la dhaafiyo horada way kulmiyana inta badan dhaqankiisa waa kamid in aad sidoo kale aad u dhaqantaan oo idinka mucaarad ugu filan baa la yiraahdaa hadaba hadii ragi ka waaweynaa ay iska tageen adigu waxa sugaysaa soo ma aha inaad ku qoosnayso maxkamad horta qof kasta wax si uu fikray anigu miishan baan leeyahay ragaas iyaga u taala anigu miishankaygu waxa weeyaan dadka dawladnimada baro waa dhaqdhaqaaqa san wada waa la yaqaan aniga barahan bulshada ku leeyahay dadka dawladnimada iyo maamul wanaagana baro weeyaan aniga kan waxa uu yahay 10 sabuurad baan helay baan wax ku dhigay imka 10kii oo balka waran sabuuradii aad ku dhigaysan aad heshay maanta anigu 10 anigu waxba dooni maayo
anigu xisbigan waad ogtahay iyo xukuumaddan iyo waxaan de inaan waxba isku qabin de waad la socotaa marka waxa weeye anigu wax shakhsi oo aan meeshan ka doonaya ma jirto laakiin cashar bay u tahay miishanka iyo hadafka anigu aan leeyahay dadka inay dawladnimada aan baro intaan bari karo wixii iga faa'iideysan karaan ay iga faa'iideystaan dad qofka yaqaana dee dawladnimada uu yaqaana uu mahadsan yahay waxaan la igu soo biiro kala casharada ila bixi laakiin maanta anigu waxaan qabaa in sabuuradii iyo kalaaskii iyo wixii la diyaariyay marka qaranko dhan baan imtixaan gelinaya haddaan su'aal ku weydiino anshax marinta guddidan inaa anshax marisay xeerka xisbiga haddii aad wax akhriday awood bay u leeyihiin oo dad badan kale oo la anshax mariyey ma dood baad ka qabtaa ma dulmi baad u aragtaa maxaad ku diidan tahay in la anshax mariyo xisbiga la ka saaro ma wala anshax marin karaa waxba dhib ma laha taasi laakiin process bay daleed waa idaari waxni waa arrin maamul de soo maaha maamul oo dhan waa isku mid ama xisbi ha ahaado ama wasaarad ha ahaado ama shirkad ha ahaado waa la yaqaanaa dee maxaan ku dhaha discipline committee baa la yidhaha waa la yaqaanaa disciplineka de waa la isa saaraa adduunyadoo dhan haddaad shirkad u shaqayso waa lagu saaraya imika tv baad u shaqayso soo maaha de haddaad khalad samayso disciplineka waa lagu saaraya dee process buu leeyahay waa lasla yaqaanaa ma inagu imika ma alifayna dee xisbiga kulmiya imika odhanaya adduunyada waxaan u keenaynaa hab cusub oo anshax marinta loo sameeyo waa wax qoran dee la raaco nidaam la raaco qoran oo jiro adduunyadoo dhan oo lagu soo dhaqmeeyey weeyaan marka hadday shirkad tahay iyo hadday wasaarad tahay iyo hadday xisbi tahay nidaam baa jira ma qofkii aan loo yeedhin baa la iska xukumaa